dadka qaar si kala laga yaabay inuu fahmaan wuxuu ku leeyahay kitaabka quraanka wax kasta uu ku yaalaa waxa kale ee la sii raadin muxuu yahay ilaahay soo ma dhin ma faradna fil kitaabi min shay wa sax ma faradna fil kitaabi min shay laakiin waxa ogaataa isla kitaabka sidaas ah waxyaabo uu sheegina jirto ee way sal isu waafaqin aayadan iyo waxa ku jira wuxuuna kitaabku sheegin inuuna wax kitaabku uu sheegin ay jiraan waxa ku daliil meel kale ka keenayno nabiga sallallahu alayhi wasallam muaad bin jabal yuu yaman u diray markaas wuxuu ku yiri maxaad ku xukumaysaa dadka markaas wuxuu yiri fa bi kitaabillahi kitaabki ilaahay baan ku xukumaaya markaas waxa lagu yiri fa in lam tajid hadaadan ka helin ka waran soo wax laga waayay kara ma rasuulka wuxuu leeyahay muaadow hadaad arintan aad sheegayso fa in lam tajid kitaabka hadaad ka weydo wuxuu yiri fa bi sunnati rasuulillah rasuulka sunnadiisa hadana ka raadinaya markaas hadana waxa lagu yiri fa in lam tajid sunnadiina waad ka weyday marka fiir waxa jira wax laga weynaayo kitaabkii laga weynaayo oo sunnadii laga weynaayo see la yeelaa marka oo hadaan yeelay bal tusaale ahaan keen inaga Soomaaliyeed dhaha haye qofka madaxweynaha inoo noqonaya inta sano ee uu madaxweynenimadka loo manaayo ee uu madaxweyne ahaanayo waa meeqa sano waa 5 sano bal aayad quraana ka soo saar jamhuuriyadda Soomaal ra'iisuha muddatu 5 sanawaat aayad kuma jirto xadiisna kuma jiro maxaa la sameeyay marka waxa la sameeynayaa muxuu yiri muaad bin jabal fa in lam tajid kadib muxuu yiri ajtahidu wala aalu wuxuu yiri waan dadaalaya mana ka gaabinaa inaan dadaalo oo wax umada anfacaaya oo kitaabkii iyo sunnadiina aan khilaafsanayn inaan keeno marka waa la keeni karaa yaani waxa la fiirinayaa kitaabkii iyo sunnadii ma khilaafsan yahay ayaa la fiirinayaa aayadan oo ma farna fil kitaab min shay mufasiriinta qaar waxay ku fasireen si uu isaga hor imaanin diintu isaga hor imaanin waxay dhan waa looxul mahfuudka wax la sheegayo ma farna fil kitaab min shay inta la sheegayaba waa looxul mahfuudka wax kasta ku yaalaan laakiin kitaabkan quraanka wax badan oo ku olin ayaa jirta midaa wuxuu u fahmay ogtahay in wax walba laga helayo la isku mar dhigo ogtahay wax aan yaani aadan helaynin mid ingiriisa waxa la mid oo saas oo aaminsano ma farna fil kitaab min shay waxba loogama tagin dhaay ya is arkeen xuna kitaabkeen wax kasta uu sheegaa markaas uu kitaabkii wax kasta ma sheegaa ha magacayga ka soo saarba kitaabkiina markaas uu magaca adiga wuxuu yiri cook ayaa la dhahaa wa tarakuuka la bishoogaysaa wa tarakuuka cook ma sheegaysa magaca ninka ingiriisiga oo meesha ka soo saaray wa tarakuuka ah marka meesha waxa la rabaa yaani in la fahmo ma farna fil kitaab shay waxa loo jeedaa waa looxul mahfuudka wax ka soo sheega laakiin kitaabkeena quraanka fa in lam tajid ayaa ku jirta taas waa mid kale waxay tahay kitaabadan inoo qoran fiqiga ah safiinaha ka soo bilow sheekh ayaa qoray faslun hada kan faslun fasal waaye oo inoo qoray nawaaqidul wudu'i faraa'idul wudu'i mubtilatu salati wuu qoray minhaajka sheekha qoray wuu sharxay waa wax la qoray ogaada laakiin waxa laga soo istinbaaday oo laga soo bixiyay kitaabku wuxuu inoo ogol yahay marka wixii aan xalaal iyo xaraan ahayn wada mesela khamradu waa xaraan ribadu waa xaraan zinadu waa xaraan hadii dastuur la sameeyay intii la dhahoyado adduunka maanta gaalaha haysatee bangiyada ribay ku shaqeeyaan aan ribada xalaalayno inagoo Soomaaliland dhahna dhaqaalaha si uu kobco gaalada bangiyadeeda ribada isticmaal ayaan la shaqeysanaynaa saas daraadeed ribadu way banaantahay haday qaar dhahan oo saa ku soo qoraan laga ma yeelay maxaa yeelay taxliilka iyo tahriimka ilaahay baa iska leh wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halal wa hada haram litaftaru ala allahi alkadhib laakiin ka waram hadaan dejisana qaanuunka la yiraahdo qaanuun tawdiif al-amal shaqada dadka sida loo siiyo hay'ad mesela wasaaradda meesha ay taala shaqaale inay qaadatay rabtaa hadii aan qaanuun loo sameeyay shaqaalaha lagu qaato waxa imaanaysa qofkii maamulo looga dhigo wasaaraddaas inta ilma adeerka ay yihiin la inuu ku qoro shaqaala tahay adna shaqaala kulli wada shaqaala ka dhigo war sidaan maxay tahay maxay ahaan lahayd wasiirka maxaa 4.5 oo lagu ma qaybsan wasaaradda annaga iska leh war sidaas ma aha wasaarad ummaday ka dhaxaysa canshuur dadka laga qaaday ayay wasaaraduhu ku socdaan saas daraadeed dadka shaqada laga siinaayo qaanuun la isku og yahay waa in loo sameeyo qaanuunkaas dadka shaqo siintooda ah waan sameeynaa
وحاجر قانون ليراد مثلا قانون المرور ودوين كسير لو مرا هذا مثلا جد كان هرتين مرا أفجوي هذا بابورتو marka ay marayaan laba dhinac ay kala maraan kii afgooy u socda dhanka midigtu maraa ka afgooy ka imaadayna dhanka bidixdu maraa way isgarab socdaan marka hadii mesela ku afgooy u socda intuu ka baxo dhinaca midigta ah oo dhinaca kale uu maro dadkoo dhan maxay dhahayaan hadda waa iskala qabsanay waa iska maraa ma ogiye laakiin maxaa leeyahay baabuurkaas sharci darro ayuu wadada ku maraaya oo seedkiisii ama dhinaciisii ma ah hadii taraafikadu ay qabato maxay dhahayaan مخالف وكجرا وحو خلافي قانونكي او ودada lagu mari laha ganaaxa laga qaadaya hadaa tirada qofkan 100 kun oo shilin Soomaaliya laga qaaday maxaa looga qaaday aayadee looga qaaday hadaa tirada aayad ganaax sheegaysa oo ku dhahaysa 100 kun laga qaado qofkii jidka afgooy asagoo dhinaci kale ka maraya dhahaya ma helaysid xadiisna ma helaysid laakiin hadaan saal loo nidaaminin shilalka baabuurta iyo isku dhacaya badanaya saas daraadeed wixii macnaha dadku ay waxooda ku nidaamsanayaan نبي وحوري أنتم أعلم بأمور دنياكم أدوية النساء دقنا إنك تقانان لكن وحنا الله أقولين وحشر على خلاف سن هذا إنك سومالي هذانا بربكي كذب وحن دولة لسكو سوير أديو وحلاقة صوب باللابا لبدي يكون شركة عرتا وحاقة بن غابي ودوكتين سومالي ده أيام التاريخ هذا محايا الكوفي عنين موجي وحاقة بن غابي ضد بلشر هيدا أو علماء هجامين أيام أو هجامي كوحدي حل جاز جري قريب كما ينعين waxaa isku aadiyay odayaashii dhaqanka ganacsatadii culimadii waa shirki carto wada ogtiin ku dhacay markii la qoraayay dastuurka waxa lagu qoray oo ilaa hadaba ku taala ay qaanuun yukhalifu shariica al-islaamiyya yu'tabaru baatilan qodob kasta oo shariicada islaamka ka hor imaanaya waa wax kama jiraan yaa marka Soomaali shariicadu waxaan yaa ku xukumi kara ka ugu faasiqsan hadii la keeno bulshada ayuu og yahay inay shariicada ogoshahay hadii su'aal la weydiiyo leedahay wadanka maxaad ku xukumaysaa hadda waa faasiq hadda la og yahay oo Moryana muxuu dhahayaa shariicada wala ma taabtaan shariicada lagu xukumaaya meeshaas fiir wala soo gaarsiyo waa masuul soo gaarsiyo in la fuliyo la dhiman ee dadka fikir ahaan dadkoo dhan waxa laga dhaadhiciyay shariicada islaamka muslimaan nahay wax kale oo anfacaya ma jiro ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun wuxuu ilaahay soo dejiyay raaca wuxuu ilaahay soo dejiyay wixii sidaas loo sheegay oo xalaal iyo xaraan iyo ku saabsan waa sidaas wixii nidaamin iyo ku saabsan xagee la maraa iyo beeraha see loo qotaa iyo jawiga see diyaaradaha loo kala hagaayo baabuurtu say ku kala socdaan iyo see shaqada markii dadka la siinayo loo kala nidaamiyaa iyo intaas waa liinoo ogol yahay intaas markaan ka soo gudubno oo dastuurnimada mushkilad ma leeyahay waxa lagu qoray baa la fiirinaya ay noqoto hal arrin oo waxa inoo soo hartay hal mas'ala oo lagu baabacay oo meesha Soomaaliya ay dhahdaan faraha looga gubtay ayaa ayadana jirta arrintaasi culays weyn ee dadka ku haysa oo ah yaani dawladnimadka Soomaaliya hadaan nahay dawladnimadkeenu way cusub tahay oo madaxweynihii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ayaa dadka intooda badan ay soo gaareen هذا عاد الله نحرسه مرده ويودنت ومدحويني ugu horeeyay marka taariikhdeenu taariikh dheer ma ah isticmaalka inta laga soo imaaday iyo waqti dheer ma in badan fawda ayaan ku jirnay waxa mushkilayn ugu qabtay marka wixii aan soo arki jirnay ayaa wuxuu ahaa shariicada aan ku toosnayn maxaa yeelay shariicada dadkii ku toosin lahaana diyaar ma ayna ahayn dadkii inooga tagay xukunkana isticmaal ayuu ahaa kharashkan ayaga bixin jiray meeshii baa laga sii waday marka la soo qaado يعني شريعتي با ايادو هيرغشي oo lagu dhaqmay maynan arag waa uu leesiriyanaay waa uu leesbuursanaay mar la fariistay oo isku toostay oo geeska gees nidaamku intuu wada gaaray alxamdulillah dadku maynan arag waxay soo arki jireen bay ahayd waxa la arkay marka caalamka kale markaad fiirisid iyo inaga markaad fiirisid horta dawladdu maxay ku dhaqantaa su'aal la isweydiina haye maxay xukuntaa markaas waxa la midaan mashruuc xukuntaa mise waxay xukuntaa qaanuun wadci ah waxa dadku soo degdegaysa markiiba ma qaanuun wadci xukuman su'aala meesha baatay marka qofkii xukuma qaanuun wadci ah xukunkiisu muxuu yahay dadku waxa u sahlan marka oo fudud aayadaha hadaan akhrinayno oo ay naftooda aan xoog kor istaagayna aayada koobaad wama lam yahkum bima anzala Allah fa ulaa'ika humul kaafiruun yani qofkii xukumi waa wuxuu ilaahay soo dejiyay فأولئك هم الكافرون وقالوا آية كلام حي هذا هي فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون صدق هذا إزدبيا لسوا معه
hooriskooda markaad fiirisid isku wax kuma dhamaanin midna waxay ku dhamaatay kaafiruun mid waxay ku dhamaatay zaalimuun midna waxay ku dhamaatay faasiquun halkaana su'aal ka imaatay marka